السلام الله عليكم كلام wanaagsan markale waa salaamantiin Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan intii galabta waa iska baashaan caadi ah mawduucu waxa waaye maxaa iga galay diirada meel ay saaran tahay ma leh waa iska soo galay marka waxa la rabaa in la iska fartibo wax allaala wixii afka soo qabta la iska sheegaya waxaan idinka codsanaynaa marka inaanan لعل يفرتك سوق الشغل أسدنا ذا نقول الله وحلا هو سويديا مرة بدأ سومالي سنة كيسو صوتا يا سومالي اسمه برياعة يا يقول لك بعيد وانت مقرتي مركا وحارو لنا هاي وطن عارنا قحوتي يا إله كوري هاي وحلقة يا با حتى مركا هذا الشيء ينقفل بسيدو أستقر هو فسرته لكن معناها معناها نلا أقام مركا نكي شيء اللي أوك معناها نقطة يكتب بين مشاس قحوتي أنا هاي قحوتي أنا حكي لجي ذا لكن كمنول ضل الشيء جبنا ولو عن أمان محو هاي نورو كما قلتون عن كويسانو حتى أنا مشكلة هو هيك تاجنت هاي دالكيني ما أنت دل علينا أنت تطلق منه حتى أكون غنانا بح عن كديفي إنه ما قد أحلينا ما لعلواتا هاي سمارة البيت يجعشها هاي أنا بيته نعبه ماشي أنت أنجمه أسكت الظلمة إنه وحرب شيء يا عليه شيء أدوش وكجرو حمر هذا تكتو example ما تشتو إرادة حرب شيء كرت حرب معناه أنا معها واحد أكل لنا كليه يوتيوب شو فريستيت أما فيسبوك لايف شو كشيت الإسكال الله هذا تيجي قاعد عبرتها درين كذا وحرب شيء لكن ماشاس ممنوع يا هذا الشيء ممنوع واحد حلا ممنوعي كل ما قرنا هنا ما فهمت ثلاثة مركب يعني هذيك وين قاعد حساب هذا نقطة كواليالو أنا كلام بدايك هذول له كورو حقوق ربسكري هذول له كورو هاي شرعية ذي سيد واحد لون نظامين هاي على الإسلام شركرين كريم شحلا نساء شحلا قبنا شحلا هرمرنا يا guriga oo muxuu ahay 10 biyana la taagay iskama taagmin engineer wuu joogaa meesha laakiin engineer kaligiis ma dhisan guriga engineerka naqshadu leeyahay designer waa ya laakiin ragaana ma hawshaas qabtay oo muxuu ahay gurigaas dibada u taagayo ya meeshaas dheer u jiro gaarsiiyay marka makasi waa la kasiisiyaa kasena waa loo kormaraa Soomaaliya tirsama marka Soomaaliya soo badnaano Ilaahay aan ka cabsano xukunka aan jecelnahay waa okay laakiin jecelka xogaha waxa fiican in la balance gareeyo laakiin waxaan oo ahay waa ku arkaa waa ku caashiq dhakab oo aan laga fuqeyn war hal la joojiyo waxaas gacmooda jiray wax ku gooyaan قرآن شعرت بالعيد ده ليري شاكذا وبضنته لكن مهمة ده waxay tahay in maxuu ahay dadku ay noqdaan dad inay noqdaan dad ehel ah walaalo ah Soomaalidu kala ma aha nin walba wuxuu leeyahay abti aysan abti iyo adeer iyo sunna waxa soo fururahaas intay saariin war bishimaa kurkiisa saaran lama baano war bisil oo jilicsan oo macaan badan loo baahay dadku way leedeen رفاضة القباء وفيري وحلو مشغول سنيا وحياة كلو حد أنا هاتي معنا إلا ماله حمر دباتو وينها كجتو دباتو ده تتكهي ستو ما يرى شق ماله بين آذن كشق فيري قفت بين آذن كصوح هذاك عظم ماله وكل هذا يكسو قرابة له بها حمر شق ماله ماله شق تك ماله كمبانيال وكويا لان أو كوكوبان حد كمبانيال رجي مال قشدي رجي مال قشدي العقد قشتي
eheladoodii aysan ka badnaynba Soomaali weyn kale ma gaarto dawlad cid u shaqeyn karta male haddii loo shaqeynaa naftirkeeda way soo gelay shaqadaas oo yaa oo waxa ahay shortcut-ka okay dadku baahida ay qabaan iyo dhibaatada meesha ka jirto isma kaafiyaan korontada waa qaali biyaha waa qaali kirada waa qaali dadku qutul duruuriga ma helaan si nadiif ah oo joogto ah uma helaan masaarifti helideedu waa cariiri ma garatay wax badanaa jiro aniga madaxda dawladda waxaan kula talinayaa inay la yimaadaan fikir ka duwan fikirka ay hadda haystaan waayo talooyinka hadda aniga aan soo jeedin rabo wax sheegay hore uma maqlin mana arkin marka waa inaan u sheegaa hadday tala diidihiin ha iska tuureen hadday tala qaadanayaan waa inay qaataan maxaa ka mid ah baddaan weyn ee laisku haysto maalin walba oo qeybaa la qaatay iyo qeyba xagga ka dhacday iyo war adduunkan aad sheegaysaan oo beel caalam iyo balaayada aad ku haysaanoo maalin baa lacag kasoo daldalataan yaa war ka soo qaada 100 doomo oo kuwa kalluumaysiga ka soo qaada 100 doonyo oo kuwa kalluumaysiga ka soo qaada calaa doon imisa la saari karaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka shaqeyn karta min tobanle haddaad saarto tira kugu filnaad haystaa dad badan aa baahi tirta kalluunka ay soo qabtaan yaa wadamo badan oo saaxiibaho fiicano wanaagsan leedihiin ka soo qaata deen xataa ka qaata warshado yar yar 5 ilaa 10 warshadood oo kuwa oo kalluunka lagu waxay inay ka sacdeeyaan inay waxayaan qaarna dalka gudihiisa lagu gado qaarna dibadda loo dhoofiyo warshadaha macala doomaha yaa i supply garantooda macala gaadiidkii muxuu ahaa transportation-ka sameelha imisa qof oo laga shaqaaleysan karaa xisaabtaas idima hortaalo yaa sheekooyin kale ku jirtiin sheekooyinkiina kale iska wata ilaahay intuu idin calfo waa gaari doontaane laakiin dadka shacabka inaa u xadaa isu daya talabaad beerihi Soomaaliya waa dhul qodato beeraha way iska dayacayihiin dhulkan carada madowle inta la gaaray xamar dhaxdiisa abu wax lagu beeri karaa laakiin dadku inay helaan imkaaniyaadka ay u baahnaan lahaayeen okay haddii marka fiiri 1000 qofood aad beeraha hadday haystaan aad beerahooda ku maalgelisaan haddaynan haysanina xataa aad muxuu ahaa u kureysaan faaw 24 saac waa isdaba joogtaani yaa magaca Soomaaliyeed lacagta lagu soo qaadoon ognahay maalin walbana waa sanduuqyada adduunka way ka badatay habka noocaasna wuu jiraa waxaa ku soo haray xoolaha nool inta la furo suuqyo waaweyn inta la furo muxuu ahaay oo la sameeyo dhalinyaro oo maxaa la dhahaa dhalinyaro rag ha lahaadeen dumar ha lahaadeen xataa ciroolaha waa lagu dari karaa yaa waxaa la sameyn karaa mashruuca dadku inay xoolaha dhaqdaan digaag ka bilow geel ku gey wala dhaqan karaa dadka nicmadoodii way ka qatan yihiin saa adinku ugu qatan tihiin ay ayagana ugu qatan yihiin maxaa yeelay indhihii dadka adinka ah haddii adinka ma aqaan oo kiyaha adinku jiro oo xagga hore ka saaran yahay waxaan waxba laga arkayn ma sheegi karo laakiin adinka laga rabaa jiheeyihii dadka idinka ah waa inaad ku jiheysaan meesha wanaagsan marka saddexdaas qodob ka soo baxa kalluumaysiga qodashada beeraha iyo xoolaha nool waa la kala qafiifayaa dad badan oo idinku mashquulsan waa idinka sii jeesan lahaayeen laakiin haddii aad filada isku soo xirteen gaadiidka isku qufisheen wixii soo dhacan idinka cunteen waxna caruurtiina aad siisateen dadka kale way gaajaysan yihiin xagee la aadaya waa idinku soo yaacaya saaxiibayaal marka intaan kabaha leedin kala bixin isjira ayaan idin leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.